siyaasiga injineer Axmed Salaad oo aadan oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa wareysi dhinacyo badan taabanayay warbaahinta ayaa ka hadlay arrimaha siyaasadda iyo amniga doorashooyinka ku soo foodlay dalka iyo waliba arrimo kale inaan tafaasiil yar ka bixiyo weerarkii sabtigi dhacay wuxuu ahaa weerar baalnimo ah oo al-shabaab ay ku soo qaadeen shacabka Soomaaliyeed ujeedkuna wuxuu ahaa amni darro inay sideeda ay wadankan amni darradaas iskaga jiro oo foodan iyo qaskan iska sii ahaado waa sida ay al-shabaab ay doonayaan waa marka sababta ay halkaas u beegsadeen hadaan wax yar aan ka tilmaamo waxay tahay waxa jirtay muddooyinkii dambe dhismaha wadada xiriirisa Afgooy iyo Muqdisho inay ku hayeen carqabad xoog leh ayagu u arkay hadii wadadaas ay dhisanto ayaga inaysan sii jiri karin maxaa yeelay abni darrada ayaga shabaab ay ku dhaxnool yihiin waxa asbaab u ah oo ay markasta rabaan inuu wadanku burbur ahaado meel aan burbursanayna kuma noolaan karaan sidaas darteed waxay hakad galiyeen bariyihii u dambeysay dhismaha wadadaas ayagoo oo qabalba u isticmaalay maalintii sabtidii ahayd oo weerarka ay soo qaadayeen waa maalintii la rabay sida aan xogta ku hayo in dib looga shaqo bilaabo mar kale wadadaasi targetkooda ugu weyn wuxuu ahaa injineeradii Turkiga ahaa ee dhisayay wadadaas ayay si toos ah u beegsanayeen oo targetkooda uu ahaa maalintii dhaweeyay waxayna ugu dan lahaayeen cunaqabataynta ay wadankan ay ku hayaan iyo dhibaatada ay wadankan ku hayaan inay kusaas ugu sii hayaan ayuu ujeedadoodu ay ahayd nasiib darro laakiin waxay garaafteen shacab Soomaaliyeed iyo ummad Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed iyo hanti Soomaaliyeed baabi'iyeen waxa hadda marka lala yaabana ma ahan oo waxa yeelay waa wax ay sii wadaayaan waay oo iska tanaasulay oo markastaba ay rabaan in ummadan ay ku sii qarabaan kama shaqeeyaan ayagu ummadan horumarkooda kama shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan ummadan baabooda marka waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaanba anigoo hadda aan cidna aan eedeynaynin oo cid gaarana aan difaacin ayaan rabaa xaaladda dhabta ah inaan ummadda Soomaaliyeed aan la wadaago ee xaaladdan looga bixi karo waxaan rabaa in ummadda Soomaaliyeed u sheego cid kasta wax garanaysa mushkiladda nimankaani ma ahan mid maalin iyo labo lagu ku soo dhamaanaysa ama ku dhamaanaysa dhibaatada wadankan haysaana waa ka weyn yahay ayaga oo kaliya ah wadankaani sidoo u baabaaba dib uma soo qabsan wuxuu u baahan yahay wadankaani dib u dhis xoog leh wuxuu u baahan yahay dib u heshiisiin aad u balaaran wuxuu u baahan yahay dadka Soomaaliyeed meel walba joogtaan inay gartaan dhibaatada wadankan haysata inta ay la egtahay baaxadooda inay ummaddu ay fahanto ayaa loo baahan yahay haddaysan dadku taas aysan ku soo baraarugina maalin kasta waxa waa in si laab la kac ah markii ay waxyaalo ay dhacaan inay dadku ay u soo baraarugaan waxa weeyaan wax hadda wax macna ah oo gooni ay soo kordhinaysa malahan inta anu aan xogta aan kala socdo ama nimankan aan xaaladooda aan ka warhayna waa wax sii soconayo waaye waa wax istiraatiijiyad in looga hortago u baahan runtii dawladdan hadda joogta waxaan aniga hadaan ka fiiriyo tilaabooyinka ay qaadisid waxa moodaa inay ka bedelan yihiin dadkii hore inay wax badan ay ka bedelan yihiin ummadda marxaladooda maxaa yeelay tilaabooyinka ay qaadeen marka aragtid waxa dareemaysaa inay ayagu xogogaal ay yihiin sida ay meelaha ay wax ka taabanayaan marka aad fiirisid waa meelaha kaliya wax laga soo afjari karo waay waxay nimankan u baahan yihiin in laga soo afjaro dagaal lagu qaado oo dhinaca fikirka ah in ummadda la wacyi geliyo in dhinaca waxbarashada dadka laga wacyi geliyo in dhinaca ciidanka laga weeraro in qof kasta uu ka qayb qaato si nimankan loo suul lahaa ama wadankan dib u dhiskiisa looga qayb qaadan lahaa inuu qof kasta gacan ka geysto wax u baahan waay waxaan sidaas oo kale aad iyo aad ugu faraxsanahay sida culimada Soomaaliyeed hadda ay ugu baraarugeen xilligan aan joogno inaysan xaaladdu hadda sidii hore aysan ahayn oo hadda wax arkaysa culimada meel kasta joogan way ka hadlaan arrintan ayada daftirkeedu waxa waaye waa bisayl soo siyaado waay marka maanta xaaladdu meel fiican ay maraysaa waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed in halkaas ay baash ay ka sii wadaan oo cadawgan arxan laawayaasha ah sidii looga hortagi lahayd dadku ay gacmahooda isqabsadaan dhinaca kale waxaan rabaa inaan u soo laabto arrimaha doorashooyinka
maalin dhaweyd waxaa jirtay in madaxweynaha Soomaaliya uu yiri wadankan waxaa ka dhacaysa doorasho hal qof iyo hal cod runtii arrintaas waxay ahayd arrin lagu farxo arrin waxay la soo hididiiladeeda leh waxaan aad iyo aad ula yaabaa marka wax Soomaalidu waxay rabtaa inay horumar gaarto laakiin wadada ay ku gaarneed markii mar walba ma yaqaanaan meesha ay ka jirto maanta qofka diidaya in hal qof iyo hal cod la gaaro hadda ma garanayo anigu qofkaasi macnihiisa wax ujeedada uu ka leeyahay waayo wadankan wuxuu u baahan yahay hal qof iyo hal cod waa waxyaalo u baahan yahay kamid tahay dadka midda shacabka Soomaaliyeed waxa la rabaa inay ku baraarugaan cidda ka shaqeynaysa dantooda iyo cidda aan ka shaqeynaynin dadka diidan hal qof iyo hal cod in la gaaro runtii waxaan dhihi karaa waa dad raba inay wadankan oo meel dhexe markasta iska joogo oo ayagu ay ku haystaan luuqluuq hoose weeyaan dadka diidaya laakiin hal qof hal cod waxay dalka iyo dadka haddana ugu jirtaa in la diidana ma ahin arrintaasi laakiin nasiib wanaag waxaa markasta baarlamaanka iyagana ugu mahadcelinayaa si kastaba ahaatee in doorasho la qabto inay guddoomiyeen waa ku bogaadinayaa runtii walow aan hadda intaan in kasii balaana aan ka rabnay tallaabooyinka ay qaadeen inay kasii mahadsanaa ay kasii weyn tahay marka waxaan rabaa in ummadda Soomaaliyeed aan ku baraarujiyo wadankan waxa maanta cid aad ku haleynaysaan inay wax ka qabato waa ka weyn yahay dadka loo soo wada jeesto oo bulshada dadka indhaha u ah sida culimada aqoon-yahanada odayaasha dhaqanka dadka inay xilkaas ka ah inay u soo jeestaan maanta xaaladda wadankan meesha u yaalo waa meesha ugu xumada sida wadankan loo qaadi lahaa ama loo badbaadi lahaa inay ummadda Soomaaliyeed u soo wada jeesto runtii ayaan mataqaanaa aan dadka Soomaaliyeed ugu baaqayaa meel kasta ay joogaan waxaan kaleeto u sheegayaa maanta xaaladda wadankan uu joogo way ka weyntaa xaalad la is eedeeyo in qofba qof uu ku eedeeyo waa wax ka weyn waay maanta waxa weeye farmaajo laguma eedeyn karo cid kale laguma eedeyn karo dhibaatada wadankan haysatahay waa dhibaato baaxad la waay waa dhibaato u baahan dadku inay hal meel uga soo wada jeesato waxaan shacabka Soomaaliyeed markale ugu baaqayaa inay gacmahaas qabsadaan inay wadankooda si wada jir wax u qabtaan in dawladda la gacan siiyo in cid kastoo timaada ama dawladdan ama dawladda cid doonto ha ahaatee dawlad kastoo wadankan timaada in la shaqeeyo in la garab siiyo inaan looga harin ayaan shacabka Soomaaliyeed ku bogaadin lahaa maxaa yeelay markii aad dadkiin aad dhisataan oo aad ku ogaataan meel markaas kadib ayaad qof kasta uu shaqadiisa u qabsan karaa oo meesha rabo aadi karaa laakiin qof kasta hadduu shaqadiisa gaarka iska qabsado yaa u maqan wadankan wallahi cid u maqan ma lahan ciddii aad u dhiibtaan waxa waayaan ayaynu danteeda iska qabsanaysaa marka anu waxaan ogahay oo xoogaal u ahay dhibaatada wadanka haysatahay inay ka ballaaran tahay maanta inta la moodayo inay ka ballaaran tahay ayaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego waxyaalaha maanta dawladdan hadda ay in lagu xuso mudan runtii waxaa ka mid ah dadku ma wada dareemi karaan wax qabad markii laga hadlo waxa halaysan dadku ma dareemi karaan dawladda markii la rabo in dadku ay dad la xisaabtamaan ama cid aad la xisaabtatid waa inaad marka hore aad taqaanaa wixii dadkan ay qaban lahaayeen oo aad u diri lahaydeen inaad taqaanin waayo waxa halaysan iyo waxa suubsan inaad kala taqaanaan waayo dalkan dhammaantiis ayaa baaba'san ma ahan wax qof iyo laba iyo wax ka qaban karaan ma ahan dhibaatada inta aad moodaysaan wax ka ballaaran waayo waxaanina waa wax weligeed soo socda waaye waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah in muddo 18 sano ah amba oo u dhaxaysay tan iyo burburkii ilaa iyo dawladda carta lagu soo dhisay inta u dhaxaysay wadankan wuxuu ahaa wadan iska bahla galeen ah oo iska fawdo ah oo cid maamusha aan arkin tan iyo dawladda carta ilaa maanta inta ka dhaxaysana weli tallaabooyin muuqda waa la gaari laayay sababta loo gaari laayay maxay tahay waa inaan garan dhibaatada wadanka haysata inta ilaa agtahay iyo samata bixintiisa iyo qaabka la rabo in loo samata bixiyo inaan fahansaneyn dhamaanteen ayad mudda oo dad yar oo la doortay ama xil loo dhiibay inay wax ka qaban karaan dalka dad yar oo la doortay dalkan waxba kama qaban karaan waxay wax ka qaban karaan kaliya waxay tahay waa markii dadku intay maamulkooda ay dhistaan oo dad u adeega ay u dhiibtaan markaas ay la xisaabtami karaan dadka marka arrintaas si loo gaaro waxaan dhihi lahaa oo shacabka Soomaaliyeed rabaan ku baraarujiyo dalkan wada dhiskiisa loo soo wada jeesto maalin kasta in dhibaato iyo tacsiil ugu jiro waa laga fiican yahay waxa weeyaan hal mar ummadda Soomaaliyeed qof kasta waqti inta bixiyo sidii muruq iyo maal iyo fikir inta la isku daro aan u xasilinayn dalkeena oo aan dadkii aan ku ammaanayn aan ku xisaabtamayn aan u dhiiban lahayn intaas gaarno ayaan markaas ka bacda danahan aan raacan karnaa laakiin weli waxaad moodaa inaan dayacanahay dayaceenan aan fahansanayn siyaasiga ayaa ummadda Soomaaliyeed uga mahadceliyay inay soo caawiyaan xilladii dhibaatada ay dhacdo waxaan kaleeto u mahadcelinayaa dadka Soomaaliyeed sida isugu gurmadeen oo lagu gurmaday dadkii walaalaha ahaa ee halkaas dhibaatada ay ka soo gaartay hadday noqon lahayd sida dawladdu ay dadkaas ugu dadaashay iyo si la mid ah sida madaxdii hore ayaguna ay u boodeen oo dadkaas ay ugu dadaaleen intaas ayaan rabaa inaan ku soo koobo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
farida hadday ku warto maati firciyo dhibgaadho dhammaanteediyo